iyadoo laga cabsi qabo fiditaanka fayraska corona ayaa wasiirka caafimaadka Tansaaniya Dr. Kawachama uu sheegay in aanay xukuumaddu qorshaha ugu jirin ay soo iibsato talaalka cudurkaasi. hadalka wasiirka ayaa soo baxay toddobaad uun kadib markii madaxweynaha Joe Magufuli uu digay shaqaalaha caafimaadka inay qaataan talaalka fayraska corona, isagoo sheegay in walow aanay caddayn u soo bandhigin in talaalkaasi dhibaato ku keeni karo bulshada. bishii hore ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ku tirtirsiday Tansaaniya inay ka fiirsato sida shacabka dalkaasi loo talaali lahaa, laakiin madaxweyne Joe Magufuli ayaa shaki geliyay tarka talaalka waxaana uu shacabka ku dhiirigeliyay bishii hore ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ku tirtisay Tansaaniya inay ka fiirsato sida shacabka dalkaasi loo talaali lahaa, laakiin madaxweynaha Joe Magufuli ayaa shaki geliyay waxtarka talaalkaasi waxaana shacabka ku dhiirigeliyay inay is-uuniyaan oo ay alla baryaan. Tansaaniya waxay ka mid tahay dhowr dal oo dunida ka mid ah oo aan shaacin tirada fayraska ku dhacay. shaqaalaha isbitaalka ayaa sheegay tirada dadka wararka loo dhigay fayraska corona inay sii kordhayso.